iskudaygii dil ee basaaskii hore ee Ruushka ayaa loo adeegsaday hub ama walax loogu yeedho Novichok, taas oo lagu filqiyay wadooyinka Britain. Ciidamada sida gaarka ah ugu tababaran sida looga howlgalo hubka kiimikada ah ayaa galabnimadii gaadhay. It's a real weapon of mass destruction. Soldiers specially trained to work with chemical weapons arrived at Salisbury Hospital late this afternoon. Cidda looga shakisan yahay waxa aynu baadhaynaa sababta aan caddayn ee lagu bartilmaameedsaday basaaskii hore ee Ruushka iyo kuwo badan oo heer sare ah oo ku nool cabsi. 66 jirka Skripal iyo inantiisa ayaa laga helay halkan, iyadoo inta badan ay dadku u dhaafayeen iyaga oo u malaynaya inay daroogo qabatimeen. Haddaba yuu yahay ninka aan laga warqabin? Si aynu u bilowno dembigan dhacay baadhistiisa, waxaynu eegaynaa noloshiisii hore ee Skripal. Sergey Victoria Skripal waxa uu dhashay 1951. Waxa uu ahaa caruurtii dagaalkii qaboobaa markii uu ka qalin jabiyay dugsiga injineerinka militariga ee Military Engineering School 1972. Waxa uu doortay inuu ku biiro unuga ugu wanaagsan ee baarashuudka ku duula ee loo yaqaano Tisniki. Markii uu koray, Professor Anthony Gillies waxa uu dhigaa culumta militariga ee uu bartay. Skripal waxa uu ka mid ahaa kooxda ugu wanaagsan ee baarashuudka, waxaanuu kaga degay baarashuudka Afghanistan si uu ula dagaalamo Taliban. Sidaa daraadeed waxa uu ahaa nin jidh ahaan u dhiiran oo dhinac ahaan u xiisaynaya inuu ka shaqeeyo howlaha militariga. waxaanuu ahaa nin aad u calool xaadhan. Inkastoo ay madaarka ku soo degayeen unuga uu ka tirsan yahay, Skripal waxa uu gaadhsaday sirdoonka dibadda ka shaqeeya ee Ruushka, waxaanay u asteeyeen Yurub kadib markii uu burburay Midowgii Soofiyeti. Si la mid ah Raashiyaan fara badan, Skripal waxa uu u baahnaa kaash isaga oo raadinayay meel kale oo uu dakhli ka soo galo. Ugu dambeyntii, isaga oo ku sugan Spain ayaa nin la yidhaahdo Luis oo ka tirsan ciidamada Spaniard ayaa ninkan da'da dhexe ahi uu u soo jeediyey isaga inay galaan ganacsi si wada jir ah. taasina si aad ah ayay u ahayd il kale oo dheeraad ah oo dakhli ka soo galo. Waxay ahayd run ahaantii waxa Skripal aanu arkayni inuu garowsado oo ah in Luis uu xaqiiqdii ka mid yahay oo uu xidhiidh la leeyahay sirdoonka Ingiriiska ee MI6. 1995 gacan uu ka helay xubno ka mid ah hay'adda sirdoonka ee Isbaanishka. MI6 waxay u shaqaalaysiisatay Skripal sida basaasiinta laba gardaaqa ah, waxaanuu iyaga u shaqaynayay 10 sano. Haddaba maxuu yahay qiimaha uu ugu fadhiyay MI6? Waxaan u malaynayaa in qiimaha uu lahaa uu yahay sanadaha uu u taagnaa shakhsi sare oo ka tirsan hay'adda GRU intii lagu guda jiray maalmihii uu burburay Midowga Soofiyeti. waxaanuu ogaa magacyada ugu yaraan qaar ka mida saraakiisha u shaqeeya sirdoonka Midowga Soofiyeti. taasina waxa ay war buuxa u ahayd MI6 inay ka shaqayso ayuu ah. waxaanuu ahaa sarkaal sirdoon militari ah. Skripal waxa uu siiyey MI6 macluumaad ku saabsan kuwii uu u shaqaynayay ee GRU ee Moscow uga shaqaynayay dibadaha. inkastoo uu u gacan geliyey dhammaan telefoonada laga maamulo madaxa qaybta GRU. xaqiiqdiina laba gardaaqa Skripal uu ku shaqaynayo waxay u baaqday in si dhow loola socdo, waxaana la geliyey in hadhkiisa la raaco oo ay gelisay FSB, hay'adda sirdoonka ee bedeshay KGB-da Ruushka. 2004 Skripal waxa meel gurigiisa dibadda ka ah ka soo xidhay saraakiil ka tirsan FSB. waxaana lagu xukumay oo keliya 13 sano. inkastoo uu Putin uu doonayay inuu u dilo khiyaamadiisa, Skripal
labadii 2014 Skripal iyo 3 kale oo basaasiina ayuu Ruushku ku soo bedeshay 10 basaas oo lagu qabtay Mareykanka oo ay ku jirtay basaasada Ruushka ee Anna Chapman oo iyadu qabsatay bogaga hore ee wararka markii lagu qabtay New York. Анна Чапман обменяли на нескольких осужденных за шпионаж и помилованных. Среди тех, кто покидал Россию навсегда, был и Сергей Скрипаль. Novichok waa hub kiimiko ah oo la isku raacay inay neerfaha iyo curuqyada waxyeelayso run ahaantiina waa hubka wax kumaada waxaana la rumaysan yahay in la horumariyay 80maadkii iyo 90maadkii oo ay horumariyeen Ruushku si ay awoodda difaaca ee NATO ugu waxyeeleeyaan waxaana noocyo kale oo hubkaasi kamid ah maalin kasta lagu isticmaalaa gudaha Suuriya oo ay kamid yihiin Colorin iyo Saaren VX iyo Novichok ay aad uga sii khatar badan yihiin suntan neerfaha waxyeelaysa waxa markii u horeeyay sameeyay saynisyahan naasigii Jarmalka ka tirsanaa ka hor dagaalkii labaad ee adduunka balse markii dagaalku dhamaaday waxay u isticmaaleen khilaafyadoodii gudaha inkastoo aakhirkii la baabiyay xarumihii lagu kaydin jiray suntaasi halista ah haddaba muuqaalkani wuxuu ina tusayaa sunta Novichok oo lagu tijaabinayo orgigan yar qiiqaasi baxayana waa sunta oo marka ay gaadho orgiga yar iyadu si weyn u waxyeelaynaysa curuqyadiisa When this happens, breathing becomes impaired, and the goat will die from paralysis of the muscles that control breathing. Kooxda Ingiriiska ee gaadhay halkii lagu shirqoolay basaas Skripal iyo inantiisa ayaa markiiba aqoonsaday suntani nooca ay tahay shaqadooduna waxay u muuqataa inuu meesha weerar ka dhacay